عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan ama arday badan oo ku jirta kollejyada ama iskuulaadka weliba iskuulaadka especially ku jirta inay ku dhiban yihiin maadada chemistryga la yidhaahdo ama sidai u fahmi lahaayeen ama qaabka u fahmi lahaayeen weliba inta badan specifically periodic tableka ayay aad dhibaato badan ay uga sheegtaan ama ay aad uga cawdaan oo fahan la-aan badanna ay jirtaa maadaama laboratory badan iyo illustration iyo tusid fara badan aysan helin waxaan u wadaa marka maanta website-kani lagu magacaabo Atomanimation wuxuu inta badan kuu sahlayaa inuu ardaygu fahmo si deeblaya atomic reactionska iyo periodic tableka oo dhammaystiran si qoto dheer inuu u fahmo marka maxaad samaynaysaa marka koowaad waxaad tegaysaa google-ka waxaad ku qoraysaa Atomanimation baad qori Atomanimation markaad qorto eed enter tiraahdo waxaa kuu soo bixi doona linkiga koowaad ee Atomanimation ama atomanimation.com ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona interface noocan ah laakiin taan wadan leenahay tani waa stepka u dambeeya ee qofku ku fahmay laakiin marka koowaad waxaad tegi doontaa halkaa yar ee tableka ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona maxay timetablekii waxaan u jeedaa periodic tablekii oo dhammaystiran baa kuu soo bixi doona halkan haddaad eegtaan waa maxay waa legendska waxa loo yaqaano category ay kala leeyihiin group kasta ay wuxuu leeyahay color gaar iminka markaad tagto alkaliga markaad keliya joogto ama alkali metalska highlight baa lagu saaray color gaaray leeyihiin haddaan iminka aan tago novel gaseska haddaan tago iyaga laftigooda color gaaraba la siiyey novel gaskuba waa kuwa si yaroo fudud buu macnaha ardaygu uu fahmi karaa haddaba waxaan rabaa element kasta curiyo kasta inaan si gaara isaga usii fahmo waxa uu yahay groupku ku jiro aanay protronada electronadiisoo dhan tusaale ahaan haddaba waxaan rabaa inaan fahmo tusaale oxygen baan rabaa inaan aad u fahmo okay oxygen markaan sidaa u dul tago waxaan ku dhufanayaa click baan siin waxaa ii soo bixi doona descriptionkeedii oxygen waxay tahay iyadoo si fiican u qeexayso loo qeexayo ayay ii soo bixi doontaa halkan waxaa igu sii qoran oo kale atomic numberkeedii atomic masskeediiba halkan igu jiro groupkiiba halkan ku jiro waxaa kaloo ku jiro periodic ama periodkii dhammaan information dhammaystiran baan halkan ka heli karaa haddaan qaybta descriptionka qaybta ku xigta oo ah iyaduna propertieska aan tagana waxaan ka heli doonaa maxay macluumaad aad u fara badan oo ku saabsan keliya oxygen keliya ku saabsan baan heli doonaa magaceedii symbolkeedii iyo wixii appearancegeedii macnaha waxaan ka heli doonaa information dhammaystiran haddaad hoos u socotana waad ka helaysaa warbixin aad u dhammaystiran qaybta electroniska electronada waad ka arki iyadana warbixin ku saabsiisan qaybtan haddaad tagto isotopskiiba iyaguna kuugu jira iyo qaabka oxygen characteristicgeeda iyo dabeecadaheegiibaa kuugu jira haddaba qaybta ugu muhiimsan ee rabo inaan idin tusaa waxa weye qaybta halkaa yara buttonka hoose maxaa ku qoran show in 3D waxaan ku arki doonaa reactionka chemical reactionka ama reaction dhammaystiran ama qaabka atomiga ay u dhacaan ee oxygen click markaan siiyo waxay soo bixi doona maxay interface noocan haddaba interfacekan si aan u fahmo waa inaan halkaa oxygen ay ku qoran tahay aan ku dhufto waxaa ii soo bixi doona descriptionkeedii animationkii ama qaabku u dhacayo atomic reactionkuna qaabkan buu yaanu arki karaa tusaale ahaan hadda iminka haddaad hoostan eegtaan waxaa ku qoran protronadu waa maxay waa qaybta casaanka oo dhani waa maxay waa protonski protonka marka laga yimaado waxaa kaloo kugu xiga qaybta cawlaankana waa maxay waa neutronski weeyaan qaybta electroniskuna waa maxay waa qaybtan yar ee aad arkaysa ee ku wareegaysa dhammaan nucleuskii oxygenta ku wareegaysa oo kale weeyaan marka ardaygii waxay ka anfacaysaa inuu fahmo isagoon warqadda periodic tableka uu print garaystay colorka uu kusoo saaray keliya aanan eegaynin inuu taleefankiisa ama laptop haddii uu haysto ama tablet uu kala socon karo weliba si advanced uu arki karo qaybta markaan ka nimaadno qaybtan yar baan tegaynaa ee tableka ka hooseysa ee graafka uu ku sawiran yahay markaad ku dhufato qaybtan waxaad ka helaysaa advanced macnaha dhan kasta ah ardayda organic chemistry oo kale dhiganaysa ama waxyaabo kale advanced chemistry dhigata hadday jirto iyaga laftigooda waxyaabo badan bay halkan ka arki doonaan valence electronicskii state of matterkii descriptionna dhammaystiran buu halkan ka heli karaa qaybta ku xigta waxaa qaybta tableka loo yaqaano tablekii oo dhammaystiran periodic tableka oo listi ah laakiin warbixin dheeriyo kooban ay kugu jirto tusaale ahaan hydrogen baa u horeysa tusaale
imika symbolkeedii calaamadeeda H baa loo soo gaabiya protonadeedii neutron electrons groupka kaga jirto periodka ay tahay melting pointiga iyo boiling pointigii dhammaantood halkan ayaad warbixin dhammaystiran aad ka heli doontaa marka ardayda waxaan ku wanin lahaa ardayda inta badan dhigata iskuulaadka ama jaamacadahaas ama iskuulaadka intooda badan waxay isticmaali karaan website-kan lagu magacaabo Atomanimation wayna ka faa'iideysan karaan run ahaantii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.